Marwo la qabo ayaa ninkeedu qortay warqad waxaanay ku qortay waan kaa tegay mana soo laabanayo la soco. Kadib sariirta hoosteeda ayay gashay. Kadib maxaa dhacay? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada daawadayaal, waa mar kaliya muuqaal kale oo xiiso leh. Magacaygu waa Axmed Yaasiin, halkanina waa Higsiyo Hadaf. Kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Marwo la qabo ayaa ninkeedu qortay warqad waxaanay ku qortay waan kaa tegay mana soo laabanayo la soco. Kadib sariirta hoosteeda ayay gashay oo waxay rabtay inay ogaato waxa uu sameeyo. Qoraalkeeda markuu akhriyo warqadana waxay dul saartay sariirta. Ninkii wuu soo galay kadibna warqadii wuu akhriyay. Kadibna qalin buu soo baxsaday wuxuuna dhanka kale kaga qoray qoraal jawaab u ah qoraalka xaaskiisa. Dharkii wuu iska bedelay isagoo heesaya oo aanay ka qasnayn. Taleefan ayuu soo qaaday oo hadal dheer ayuu galay wuxuuna dhahay ayaa xabiibi imika ayaan soo baxayaa. Wuxuuna sii raaciyay islaantaydii maanta guriga walaalkeed ayay aaday oo ma soo laabanayso, allay naguma soo celiye. Waxa kale oo uu sii raaciyay nolosha aan ku noolahay waaban karhay, fiicnaan lahayde intaan iyada la kulmayay inaan adiga kula kulmo. Wuxuu dhahay nus saac agtaadan joogaa. Wuuna baxay. Xaaskiisii inta ay sariirta hoosteeda ku jirtay oo warkiisa maqlaysay naxdin iyo ciil ayay garan la'ayd meelay tagto. Sariirta hoosteeda ayay ka soo baxday iyadoo ciil iyo cadhow dhiman jirin. Waxay bilowday inay dharkeeda urursato iyadoo ooyeysa oo murugsan. Waxay aragtay warqadii sariirta dusheeda saarnayd ee ay qortay. Way soo qabatay si ay u akhrido waxa dhanka kale kaga qoran. Waxaana ku qoran xabiibi lugtaada waan u jeedaa inaad sariirta hoosteeda ku jirto. Waan baxay oo waxaan inoo doonay qado waayo waan baahanahay, adna waxbay nooma karin. Aan kuu soo laabto adigoo oohinta indhaha ka dhaqay. Waan ogahay inaad xanaaqday. Hadduu ka nixin lahaa oo dhihi lahaa naa soo bax waan kuu jeedaaye, wuu ka xishoodsiin lahaa xaaskiisa. Hawlgalka ay ku sameynaysana wuu ka halaabi lahaa. Intuu iska daayay hawlgalkeeda ha wadatee ayuu weliba sheeko beena u jilay. Kadibna ka farxiyay warqadna u reebay qadadiina doonay. Masayrku waa jacayl, qof aan ku jeclayna waa qof aan ku masayrin. Dulqaadka iyo naxariistu waa jacayl oo qof aan qaladaadkaaga u dulqaadan karin kuu naxariisan karin kuma jecla. Labada qof intay isfahansan yihiin weligood xiriirkoodu ma oo wuu sii xoogeysanayaa. Haddaba sheekadan wixii kaaga baxay barta commentiga nagula wadaag. Daawadee waad ku mahadsantahay haddii aad soo gaadhay ilaa dhammaadka muuqaalka like saar. Sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay subscribe dheh channelka oo ka mid noqo baaweynta nagu xidhan. Assalaamu calaykum.